waxaan horta u sheegayaa dadweynahan Jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantood inuu wadanku yahay nabad balaaya aanay ka jirin abniguna sugan yahay marka laga reebo waxyaalaha yaryar ee booliska la falgala ee maalin walba dhaca ee waxyaalaha yaryar caadiga ah qodobka labaad anigoo ku hadlaya afka booliska boolisku wuxuu u xil saaray wasaaradda arrimaha gudaha amniga gudaha booliskuna wuxuu u xil saaray inuu sugo amniga gudaha waxa ugu horeeya inuu shuruucda dalka socodsiiyo dastuurka qaranka ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida ilaaliyo ayaa kooka iyo waxyaabo kale oo badan qof kasta oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool waajib gaar u leeyahay muwaadin kasta oo meel taagan sidoo ka ganacsadaha cashuurta u bixiyo sidoo ka dhakhtarkii ummadda u daweeyo sidoo mid kasta shaqada ku haboon qarankan ugu hayo annaga xilka nasaarin waxa weeyaan inaanu qof kasta oo Soomaaliland ku sugan amnigiisa ilaalino qofka cashuurta waxaanu qaadanaa ciidamada qaranku waxay qaataan cashuurta laga soo ay bixiyaan dadka muwaadiniinta noocay doonaan ha ahaadaan sida ay cashuurta noo siiyaan mushaharka u qaadano ayaa qof kasta wuxuu xaq nagu leeyahay inuu amnigooda sugno waxaanu dadka u ballan qaadaynaa insha Allah qof kasta oo reer Soomaaliland inuu amnigiisa sugayno amnigiisa ilaalinayno amnigiisa dul taaganahay wax dhib oo ku imanayaan aan jirin waxaanu dadweynaha kula dardaarmayna amniga iyaga nagala shaqeeya inaad amniga ka shaqeysaan waxyaabaha amni darrada keenaya iska ilaalisaan waxyaabaha dhibka keenaya iska ilaalisaan hore way uga wada hadalay in badan qofku hadduu soo baxo oo khalkhal sameeyo ama uu amni darro ku dhaco booliska kaasuun bay isu yimaadaan booliska waxay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada qofka amni darro faraha la galay booliska iska hor yimaada dadka kale boolisku uu ilaaliya amnigooda dushu ka ilaaliya dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku soo nooc doonaha ahaado booliska way is arkayaan booliska way isu imanayaan sababtoo xasiloonida iyo nabadgelyadu boolisku ilaaliya qof walba gurigaaga ku jir qof walba shaqadaada qabso qof walba booliska iyo amniga iska rabtaag sida imikaba isu kaaya garab taagan nolosha shaqaysa dadweynahana waxaan ku adkaynayaa inaynu amniga isgarab taagno qof walibana uu shaqadiisa ku sugnaado shaqada wixii amni darro keenaysana uu iska ilaaliyo waxa kale oo sheegaya qof kasta oo khalkhal gala wuxuu doonahaado khalkhal amni sameeya amni darro ku dhaca booliska way ishelayaan gacantana way ku qabanayaan xilku doonaha hayo mas'uuliyadu doonaha hayo noocu doonaha ahaado shuruucda dalka ka sareysa amniga shay walba ugu horeeya booliskuna taasoo ilaaliya boolisku uu qaban doona cadaaladii maxkamadana uu horgeynay ugu dambeyn dadweynaha oo qodobka ugu dambeeya waxaan kula dardaarmayaa dadweynuhu waa inay amniga ka shaqeeyaan ciidamada amnigana iska garab taagaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.